cabdiraxmaan maxamed maxamuud waa nin oday ah oo 70 jir ah oo ka mid noqday ardadii shalay u fadhiistay imtixaanka dugsiyada hoose dhexe ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in waagii uu yaraa fursad u helin inuu wax barto, haddase uu ku faraxsan yahay heerka waxbarashada uu gaaray. كان بلاوي ليش صدحات الصومالي اللي كسب بلاوي متقنا حسابتي اللي كسب بلاوي كلها ده بلاوي waxay noqtaa dadka maartay deegaanka meesha aan joogay hadda kaalkayaan soo awal laakiin deegaan xogaa ka durugsan isla gaar ka tirsan baan joogay marka aad bay dadka ugu adkay waxbarashada ay warka joog waraad farmawaalanta waxaas yorin jirin sidoo waxay mar walba ay ugu jeedin jireen dadka tagaa u taagay warkood على سيد عبد الدلال waxay mar walba ay ugu jeedin jireen dadka tagaa u taagay warkood marka waa inay maadis adoo waxa doon war ma ana wax soo ani wax yeelay gaar ma jira waxaan ka faa'iiday qofku aduu wax barto wax kasta adduunka looga dhaqmo waa arkaya ama aakhirada hataa inuu wax ka fahmaa suuroodo waxa loo sida aakhirada waxa dadka u horeeyo oo u dambeeya marka anigu waxbarashada waxaan ka fahmay inay qaali tahay oo wixii fiican ma taqaanaan ku dhaqmayo wixii xun uga leexanayo sida waxaan ka soo saartaa adigu hay'adaha marmar ma meelaha joogna yimaada oo la joogaan yaan adaa la kuriin xoogaa marmar ma taqaanaan taa la shaqeeyo bay xoogaa qarashii marmar siiya quraan oo saqiira markii la bilaabay marka quraankii meesha uga tagay Allah naxariis aabay oo markaa dhintay agoon baan noqday anoo markaas markii aan qaangaar si fiican u qaangaaray waliba dhowr sano ku darsaday waxa la keenay afki Soomaaliya oo lagu rayo oo liigeeyay waa maqashay la taagnaadkeedii markaas oo baan bartay dadku waxay arkeen inaan qaldanahay maartii la socodsiin kara la socodsiiya aniga horta baana waay ma taqaana waxbarashaduna sida hadii soo dhaaf inay wax u mali adag tahay oo qarashna anigu ma taqaana xoolo mari marka waxaan isleeyahay horta bal waa dibtan maarta aan ka baxo waa fiirinaya bal inaan socodsiin karo inaan socodsiin karo hadda marka caalin laakiin anigu waxaan jeclahay inaan markasta wax ma taqaana waxbarashaduna qaali tahay inay wax bartaan oo qaali tahay waxbarashadu oo wax xun iyo wax kale ku kala garanayaan haday wax bartaan taasaan ku dhiirigelinayaa qaar ay arkayeen inaan qaldanahay oo dadka la mid ah qaarna ay arkayeen inaan saxnaayo ma taqaanayo waxbarashada inta qaar baa ayuu hadda waxbarashada inoo soo gooyay kaarkii ay ku geli lahayn iskuulka ma jeeda qaar baa ka baxay oo ka harwaan imaan marka dadku waa iska fara badan yahay barashada ayaa muhiim ah inta aad nooshahay ma dhamaato waxbarashada kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo oday ah 70 jir ah oo shalay u fadhiistay imtixaanka dugsiga hoose ee magaalada gaalkacyo. wariye cabdinaasir maxamuud xaaji axmed cabdinaasir qujuufa dulqaad meediya freelance journalist